بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلمة صابسا مصيبة ذي تبكي قبصدي حلي عاصمة دهر كيسا سوقي هو ويناي كراسيو ويالي إلهي بنا سبحانه وتعالى كبرينا مصيبة إنه قد عضي إنه إلهي عود كذا إلهي سبحانه وتعالى إنه ينصيه دد مؤمنين بينو نحيو دد إيمان كود إلهي سبحانه وتعالى كحرية هينو نحي دد فرب بدنو هالكا أن كد جيسنيي أو ميريدو أيسو قد بيسي قابك أولو نقمينا دد إيمان كم موضوع أو كل سونة إلهي أي كحرنت أي كم موقع تبعي حيان أو إلهي بنسيي إلهي بأنا مصيبة نقول كاني إلهي بأنا نسين دونه أي لحيان مركا وحن لا يحي إلهي سبحانه وتعالى مصيبة إن قد عضي بهذا أنت عليك له مروجة حنون كبضن إن جتكتي إلا ما أنتنا إنه لا تعالى إنه سيدي إن أحدين لحين إن أكوب لحين ابتدأ وحن لا إلهي سبحانه وتعالى اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها إله مصيبة نقول عضي أبال كذا يونا خير كذا نصي وحكى خير بدن عود كذا إله سبحانه وتعالى نقول بدل نصي قرآن كهان وكيل الله سبحانه وتعالى نقولها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ونصد فعل كيني كموقتي دمان dadkeennii oo isku wada tagay dowladdii hoose dowladdii dhexe ciidankii booliiskii oo waxaan waliba si gaar ah u xusayaa ciidanka debdemiska shacabkii dhammaan waxaan idin leeyahay wax qurux badan oo mas'uuliyadi iyo xilkasnimo ay ka muuqato ayaad la timaadeen ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka abaaliyo dadkii meesha ku cayroobay ama hantidoodii ka gubatay iyagana waxaan leeyahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ciwad sariica oo xagga min allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baan idinka baryaya ilaahay inuu idin siiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dadkii ku dhaawacmay iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala boogahooda inuu ilaahay si degdega ilaahay inoogu dhayo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa sidaa aynu dhexda u xidhannay aynu u wada gurmanay ayaa waxaynu u baahannahay arrinkaa halkaa inaynanu kaga tegin inaynu sii wadno oo dadka weliba culayska aynu saarno suuqa waynu dhisan doonaa dib baynu u dhisan doonaa shalayba inagaa dhisanay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay tawfiiqdiisa iyo madadkiisa kadib suuqa waynu dhisi doonaa suuqaqa kale waynu dhisan doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sidan ka qurux badan ayaynu u dhisan doonaa haddii ilaahay idmo magaaladu dib bay inoogu camurmi doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u baahannahay hadda dadkii meesha ku cayroobay ee musiibada intaa leegay ku dhacday inaynu murugadooda inaynu la wadaagno oo si degdeg ah guddi loo saaro oo guddigaasi ay soo tiro koobaan khasaaraha dhacay inta uu maxay uu leeyahay dadkaana in xoolahoodii wixii lagu gudi karo ee laga siin karo in la iskugu tago oo halka ay dareemaan walaalnimadii islaamka iyo walaalnimadii tolnimo la dareemo oo la garab istaago sida ay u sabreen u dulqaateen sida quruxda badan iyo xariirtu ku jirtay maxay tole aanay ashtako aanay lahayn jazac iyo murugo aanay jirin ay ilaahay talada u saarteen inaga xilka ina saarana waxa weeyaan inaynu gurmano horta taa waan ku talin lahaa inaynu dib haddii ilaahay masuuqeeni waa weynaana inaynu ka tashanno kanna aynu qaabka inuu dhisanaa qaab casri inuu noqdo inuu ka badbaado inuu ka foojignaano wixii dhib ah kuwa kalena in lagu cibro qaato oo si degdega go'aan looga qaato oo la fuliyo sidii maxay toole ay u noqon lahaayeen meel maxay toole nabadgelyada iyo fayadhowrkaba maxay toole lagu ilaaliyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala mar labaad waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaanu idinkala jirnaa afka waanu idinku hiilinaynaa gacanna waanu idinku hiilinaynaa garabkiina nahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dad mid ahoo walaalo ahoo madax iyo mijaba isku wada
duuban oo maanta waa maalintii isku duubnaashaheena la arki lahaa waana la arkay inaynu halkaa kasii wadno oo inaynu dhexda kaga tegin oo dhexda inaynu ku banjarin aynu biidni illaahi tabaaraka wa tacaala arrinkaasi sharaf leh oo hufan oo qiimo leh aynu u dhamaystirno biidni illaah وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.